nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay wuxuu ka magangeli jiray afartan arrimo aadka u xun. tan ugu horeyso wuxuu ka magangeli jiray jahdil balaa, culays uusan qaadi karin, musiibo dhabarka goyso. wuxuu kaloo ka magangeli jiray shaqa, dhibaato, walwal, murug, culays uu qaadi karin oo murug u keenayso, dhabarka jibinayso ka magangeli jiray. wuxuu kaloo ka magangeli jiray aad ilaahaga magangeli jiray suu'il qadaa, in ay ku dhacdo arrin dhibayso, culays u keenayso, walwal u keenayso. wuxuu kaloo ka magangeli jiray shamaatat al-acdaa, cadowga inuu kugu jeesteeyo, dhibaataa kugu dhacdo. qof walba dhibaato waa ku dhici kartaa, laakiin haddii lagu yiraa ka waran waa keenay kiisa u malaynaya suu idiin bani marka horeba kan saan u ahaa, marka horeba tan saan ahayd, waa oga inay cadowgaaga ay kugu farxaanne ilaahay wuu ka magangeli jiray. ducadan waa maxay oo nabiga sallallahu alayhi wasallam ku duceysan jiray? goormaana lagu duceystaa? meeqa maraa la aqriyaa? halkee lagu duceystaa? وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا له إلا درتي سجع ميل ولدنك أتكجوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة طبنات أما دعادي طبنات أو أهد دعوينكي بشهر رمضان، بشي خيرك، بشي رحمة، بشي دنب دافك، بشي بركة، بشي قرآنك لسودجي، بشي دتك نارت لو حريناي، بشي ليلة القدر أي كجرتي، بشي سمد لفرايي. سيد الدعاء الله أقبله إلهي سبحانه وتعالى وحاوي دي سنين الدنبيجينا إنه دافو دتك نارت لو حريني إنه نقدره ليلة القدرنا الله نوافجيه. اللهم آمين. walaalayaal maanta maadaama ay tahay maalintii tobanaad waxaan kuu soo doortay ducadan oo ilaahay aad ka magangelaysid afartan arrin oo aadka u xun. waa afar musiibo mid ka mid ah ku filan inay dhabarka ku jibiso. afartan musiibo suu ilaahay kaaga badbaadiyo ku duceyso ducadan markasto. nabi maxamed ku sallallahu alayhi wasallam kaana yukthiru min hada ducaa. ducadan wuu badin jiray, wuu ku duceysan jiray. anigii adiga halkeen joognaa marka ducadan ku duceyso markasto. xifdi walaalaha kala nasiibar khayr allah ku siiyo. intana insha allah tacaala waxaan rabaa inaan kula wadaago afar arrin oo aad u xun loo baahan yahay inaa ilaahay markasta ka magangeshid. intaan ducada kuu sheegin waxaan rabaa inaan kuu sheego afartaas arrin ku dareensiiyo xumaantooda saa u ogaatid saa ducada u xifdiso ilaahay markasta aga magangashay. laakiin xadiidka iyo ducada intaan kuu sheegin waxaan rabaa inaan kuu sheego saxaabiga nabiga ka wariyay waa abu hurayra radiyallahu anhu. xadiidkana waxaa soo saaray alimaam alcadiim imaam albukhaari kitaabkiisa addacawaad baab attacawud, baab inaa ilaahay wax ka magangashid ayuu aga dhigay xadiidkan. sidoo kale waxaa soo saaray alimaam muslim raximahullahu tacaala wuxuu ku soo saaray kitaabkiisa la yiraahdo kitaab adh-dhikr. wuxuu baab aga dhigay xadiidkaani baab attacawud min suu'i al-qadaa. afarta arrin oo ilaahay loo baahinaa ka magangashid waxay tahay si general haddaan kugu sheego waxaa waay tan koobaad inay kugu dhacdo culays aadan qaadi karin, culays oo dhabarka ku jibiyo. waxay rabta ha noqoto ma qaadi kartid, mana iska celin kartid. ilaahu waxaa leedahay marka culayskaas weyn oo aan qaadi karin wuxuu raba ha noqdo. tan koowaad marka ilaahay ka magangesho oo tira ilaahayo waxaan kaa magangeli wax aan qaadi karin, culayskiisa aan iska celin karin. tan labaadna waxaa ilaahay weydiisanaysaa inuu kaa ilaaliyo wax adiga inay kusoo dhaafaan, faamilkaaga usoo gudbo, ehelkaaga usoo gudbo, caruurtaada baabi'iyo, qof kastaa jecesheed culays fuuro, farxaddii iyo sacaadadii kaa qaado, murug kugu bedelo. ilaahu taasna waa kaa magangalaa leedahay. tan saddexaad oo ilaahay ka magangelaysidna waxaa waaye adiga naftaada inaad ka murugtid wax hadday kugu dhacaan. ilaahu waxaan kaa magangalay dhibaato xun inaan ku dhaco. haddaan ku dhacana macnaheedu waxaa waaye ilaahayow ha iga dhigin qof aan sabir lahayn,
qof oo walwal markasta ku jiro. waxaan kaa magan galay inay dhibaato xun igu dhacdo. ilaahu haddaa ii qadirtay ay igu dhacdayna waxaan kaa magan galay inaan noqdo dadka israaciyo. macnaheeda waxaa waaye ilaahay igu arsaaq sabar sama ugu sabro musiibadaas. tan afaraad oo ilaahay ka magan gelaysid waxaa waaye inay dadku ugu jeesteeyaan dhibaato ay ku dhaca dhibkii ku dhaca fiir waa u malaynaya wuu istaahili inay dad fankaa sameeyaan shamaata inay kugu shamaytaystaan idhahaan oo kale fiirikii waa u malaynaysaa inuu noqdo. المهم إله وحال هذا إله وحان كان ما قال رج إني إيسان أما إيجاد قف هو سي هوس إيصافيريان أفرت أرنو حن وأوجاني دعوة أوقفي عنه لجود دعوة سو إلهي إيجابت بادية أفرت أرن ومح دعوة ما أنت وحاوري الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. الله هذا معناه هذا هل حلا أكر استاجينا كلمة كوبادا كبلا بين سيد عادة نوعين. اللهم فيري كلمة معان كذا إلهي يوعي اللهم إلهي أبوري يعني توسل وحا إلهي كتوسل يسمى عيسى. اللهم إلهي يو مركات إلهي كذب أي إلهي وحا كما قال ليس أفر هل حالا نكون استاجينا إن شاء الله تعالى. قيبت كوبات وحا هذا اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء. لو معنى هذا هذا فتحة كديكنا وحاوى إله وحا كما قال مشقة إيه مصيبة إني يقول على كما قال هذا ضم كديكنا وحاوى إله وحا كما قال مصيبة أن قادي كريم إني يقول على مصيبة أو قادي كريم والله جايب إنه كبر بربو أما دبعت كويل إيه كانتو إله هو كامل قال الله بعتنا وحى هذا ودرك الشقاء درك وحى كذب تجي تانوا إلهي وحى كامل قال إنا نهلاك سمو إنا إهلاكت إله هو كامل قال أما إله وحى كامل قال وحول بو أو إجينا الشقاء هلاك إجينا إله هو كامل قال تنسد حالنا وحى وسوء القضاء معنيه سوحاوى إله وحان كامل قال وحول بو أو إبرجنايو أما دبئي كيناي أما إله وحان كامل قال وحكستو أو سبب النقنايو إنو دبئي ماذو أما مروك إيتماذو أما مروك والول إيماذا كامل قال تن أفرادنا وحاوى وشماتة الأعداء إله يوقف عدو إنو يقفر حوا كامل قال sometimes waxaa jirta qofka dhibaa ku dhacayso dadka laba qayb waaye dadaad jeceshahay way ku walwalaayeen oo way ku murugoonayeen dad ku nacban shamaata way kugu jeesjeesayeen haa waxaasaa ku dhacay fiiri ama waxaa laga yaabaa inay fankaa sameeyaan ama inay dhahaan wuu istaahilaa ilaahayo waxaan kaa magan galay cadowgayga inuu igu farxo ilaahu waxaan kaa magan galay cadowgayga إنه يوجسته. بعد ولا يلوحى صوصار إمام البخاري رحمه الله تعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم دعاء آذ ودعو سنجري أنت كلمة عن أصحابتي حتى وحو أمر إني كدعو يستان لأن الدعاء وحي وضطاي وحي كامل قلنيس أفر أهل آذ وحن كان أوجدا بفير قفل وأنا نجمد وحالي ما إنه نبجارو إني تذكر كوفر عدو كوفر حتى أديك حتى مرجع كو إيمانيس نبجار كو إيمانيسو marka afartan arrin oo aad ka u xun ina ka magan gashay markasto ku dadaa insha Allah su'aal
ma jirtaa waxyaalo kalo oo nebi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ilaahay ka magangeli jiray mise intaanay ku eg tahay? jawaabtana waxa waaye haa, way jiraan arrimo kalo nebi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ilaahay markasto ka magangeli jiray. haddaa rabtid inaad ogaatidne arbacada soo socoto iyo ku dhaafin, qofka ugu horeeyane noqo, khayr Allah ku siiyo. Allahumma inni a'uudu bika min jahdi al-balaa wa darki ash-shaqaa wa suu'i al-qadaa wa shamaatati al-a'daa. Allahumma inni a'uudu bika min jahdi al-balaa wa darki ash-shaqaa wa suu'i al-qadaa wa shamaatati al-a'daa. Allahumma. haddaba walaalayaal, ducadan waa ujeedaan say muhiim u tahay, بالذات زمنkan aan ku jirno. ducadan xifdi waa duco gaaban oo hal layn keliya ah. ducadan iyo 9kii duco la soo dhaafay xifdi isku darso 10 duco saan ku haysatay. adoo 10kan haysatid 10ka labaad oo bisha Ramadaan saas ku gal, khayr Allah ku siiye. xifdi walaalaha kalena bar, bakhiil ha noqonin. ugu dambeyntii Allah subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanayna dambigeena inuu dhaafo, dambiga waalidkeena dhaafo, dadka naarta laga xoreynayo bishaan inuu ilaahay nagu daro, habeen walba daduu ilaahay naarta ka xoreeya, ilaahu dadkaas nagu dar. allahumma aamiin. jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum. waa inuu birrito iyo duco kaloo cusub ilaa berri laga gaarayeen maxaa lagaa rabaa? kow inaad dhegaysatid, inaad xifdisid, ku ducoysatid, walaalaha kalena sii bartid, tan iyo kuwii horaba. bakhiil ha noqonin. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.